السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. buurnaantu ama cayilnaantu maaha wax u fiican caafimaadka jidhka, waxaanay dhakhaatiirtu in badan ku celceliyaan in la iska dhimo miisaanka saayidka ah, iyagoo sheega markastoo miisaanka qofku saayid uu noqdo inay ka dhigan tahay inuu wajahayo khatar caafimaad. wadamada qaarkoodna waxaa looga yaqaanaa buurnaanta xanuunka casriga ah. dowladaha qaarkoodna waxay dhib ku qabaan siday dadkooda ugala dagaalami lahaayeen buurnaanta ama cayilnaanta saayidka ah. haddaba haddii aad tahay qof miisaankiisa uu saayid yahay isla markaana u baahan inuu isaga rido si dabiici ah, waxaad isticmaali doontaa cabitaankan muddo bila. si aad cabitaanka u diyaarsatana waxaad isku daraysaa 3 shay oo kala ah: koob sharaaba oo aad ka samaysay jeex liin dhanaana oo diirkeedii wadata, iyo malqaacad yar oo sinjibiila, iyo litir biyo ah. 3 shay baad isku daraysaa, waxaanad cabaysaa sharaabka aad 3 shay ka samaysay. waxaad cabaysaa subaxda hore 1 koob, waxaanad wadaysaa muddo bil ah. kadibna waxaad arki doontaa sida la yaab kale ee miisaankaagu isu bedelo insha Allah. aad baad u mahadsantihiin.